maxkamadda markii ay qiimeysay muuqaalka xafiiska uu soo gudbiyey iyo difaaca eedeysanadu ay ka bixisay labadaba waxa uu cadaatay in eedeysanadu ay muuqaalkaas ku dhex sheegtay in haddii la xiro la ikufsado ama muuqaal anshaxumo ah la iga duubo ama miriqdeeda la waayo ay eedaas u haysato dad ka tirsan booliiska balse aysan sheegin hay'adda booliiska Soomaaliyeed in eedeysana Sacdiyo Macalin Cali Xasan ay xustay magaca ayada saraakiil uu ka mid yahay Cabdi Cali oo ah sargaal booliis u qaabilsan baraha kontaroolada gobolka Banaadir ayadoo sheegtay in uu ugu hanjabay in miriqdeeda la weyn doono maxkamaddu markii ay qiimeysay sheegashada eedeysanaha waxa uu cadaatay in warkaasi uu yahay sheegasho oo kaliya aysan weelin wax cadeen ah oo xoojinaya sheegashadeeda sidoo kalena aysan ka horsheegin warkaas maxkamadda darajada koowaad ayada oo intaas dheer tahay sargaalka Cabdi Cali uu yahay sargaal ka shaqeeya howlgallada sida dabiiciga ahna aysan shaqadiisu ahayn inuu ka shaqeeyo howlaha saldhigyada sida saldhigga Hodan Xamar Jajab ee hore eedeysanada loogu soo xiray maxkamadda rafcaanka markii ay qiimeysay xukunka ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir waxa maxkamaddu u cadaatay in xukunkaasi uu yahay mid aan ku qutamin asbaab sharci oo maangal ah maxkamadduna ay ku guuldareysatay in ay iswaafajiso dhacdada ay ka garnaqayday iyo faldambiyeedka ay sheegtay in ay ku heshay eedeysanada maxkamadda gobolka Banaadir ma aysan tixgelinin mana aysan fiirin in ay ahayd eedeysanadu hooyo nuujinaysa ilma da'doodu ka yar tahay 9 bilood iyada oo intaas dheer tahay in maxkamaddu xarigeeda ay si degdeg ah u fulisay eedeysane Sacdiyo Macalin Cali Xasan ina Faadumo Maxamed Cali 29 jir ah ku dhalatay Xamar degan degmada Boondheere faldambiyeedkii lagu soo eedeeyay ee ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala aqriyay qodobka 45aad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxa ayna u celisay xorriyadeedii waxa ay faraysaa booliiska waxa la farayaa cid kasto emotion sameeysa inay banaanka u saarto hulka maxkamadda maanta iyo taariikhdu tahay 12ka bisha 8aad 2026 maxkamadda oo maanta ay ku dhawaaqi doonto galdacwadeedkan sumadiisu yahay 62 koor inta aysan maxkamadda ku dhawaaqin maxkamaddu waxay u gudgalaysaa asbaabta xukunka maxkamadda haddii ay dib ugu noqotay qoraaladii ay soo gudbiyeen iyo doodihii ay soo jeediyeen labada dhinac aragtayna dhammaan dukumentiyada ku jira galka maxkamadda gobolka iyo maxkamadda rafcaanka darastay cadeemaha dhinacyada waxa uu cadaatay koow in xafiiska xeraaliyaha guud ee qaranka uu maxkamadda hor keenay muuqaal ay ku sheegeen in uu cadeynayo in eedeysanad Sacdiyo Macalin Cali Xasan ay ugu gaftay hay'adda booliiska Soomaaliyeed una geysatay ceebeen iyo sumcad dil iyagoo sheegay in muuqaalkaas oo ay ku faafisay baraheeda bulshada ay ku sheegayso in booliiska ay anshaxumo ku sameyn doonaan taasoo xafiisku ku dooday in ay gashay faldambiyeedka ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad ee xeerka ciqaabta laba in eedeysan Sacdiyo ay maxkamadda horteeda iskaga difaacday si waafaqsan qodobka 116 faqradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta in muuqaalka ay duubtay aysan ugu gafin sheegtay in muuqaalka ay duubtay aysan ugu gafin hay'adda booliiska Soomaaliyeed oo ay sheegtay in ay handadaad iyo cabsi gelin kaga timid shakhsiyaad ka tirsan booliiska sidoo kalena ay sheegtay in ay haysay cadeemo ay ku cadeyn lahayd arintaas balse moobilkeeda laga tirtiray dhammaan xogahaas oo dhan markii la soo xiray dabadeed
maxkamadda markii ay qiimeysay muuqaalka xafiiska uu soo gudbiyey iyo difaaca eedeysanadu ay ka bixisay labadaba waxaa u caddaatay in eedeysanadu ay muuqaalkaas ku dhex sheegtay in haddii la xiro la ikufsado ama muuqaal anshaxumo ah la iga duubo ama miriqdeeda la waayo ay eedaas u haysato dad ka tirsan booliiska balse aysan sheegin hay-adda booliiska Soomaaliyeed taas oo ay maxkamaddu u aragtay in siiqada ay warka u dhigtay uu ahaa haddii la yeelo laakiinse aysan marnaba maxkamadda ka horsheegin cid booliiska aysan ka horsheegin booliiska cid ka tirsan oo ku sameysay falkaas ay soo sheegtay taasina ay xoojinayso sheegashada difaaca eedeysanaha afar in eedeysana Sacdiyo Macalin Cali Xasan ay xustay magacyada saraakiil uu ka mid yahay Cabdi Cali oo ah sargaal booliis u qaabilsan baraha kontaroolada gobolka Banaadir ayadoo sheegtay in uu ugu hanjabay in miriqdeeda la weyn doono maxkamaddu markii ay qiimeysay sheegashada eedeysanaha waxa uu caddaatay in warkaasi uu yahay sheegasho oo kaliya aysan weelin wax cadeen ah oo xoojinaya sheegashadeeda sidoo kalena aysan ka horsheegin warkaas maxkamadda darajada koowaad ayada oo intaas dheer tahay sargaalka Cabdi Cali uu yahay sargaal ka shaqeeya howlgallada sida dabiiciga ahna aysan shaqadiisu ahayn inuu ka shaqeeyo howlaha saldhigyada sida saldhigga Hodan Xamar Jajab ee hore eedeysanada loogu soo xiray in qareenada difaaca eedeysanada ay ku doodeen in eedeysanada aan hal fal dambiyeed laba jeer loo wada maxkamadeyn karin maadaama ay horay maxkamadda gobolka Banaadir u soo saartay qaraar sumadiisu tahay maagaba daaca 442 kuna taariikhaysan 14ka bisha 3aad 2026 taas oo ay sheegeen in eedeysanada ay maxkamadda ku weyday fal dambiyeedyadii loo haystay sidaa darteed iyada oo maxkamaddu ay ogtahay go'aankii hore ay ugu sii daysay eedeysanada ay haddana mar labaad ku maxkamadeysay isla dhacdadii taas oo khilaafsan qodobka 13aad faqradiisa 3aad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed maxkamadda rafcaanka markii ay qiimeysay doodaas waxa u soo baxday in qaraarka sare ku xusan uu quseeyay eedaha ku xusan qodobka 321 322 468 xeerka ciqaabta kuwaasi oo ay maxkamadda go'aan hordhaca ka gaartay si waafaqsan qodobka 39 ee xeerka habka ciqaabta kadib markii ay dhageysatay warbixinta sargaalka booliska ah ee sameeyay horgeynta maxkamadeed laakiinse faldambiyeedyada dambe ee maxkamadda gobolka Banaadir ku maxkamadeysay ay ahaayeen kuwa ku qotoma qodobada 320 269 faqradiisa labaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed oo lala akhriyay qodobka 45aad ee xeerka ciqaabta Soomaaliyeed taasoo ka dhigan in aysan jirin dooda qareenada difaaca ee ah in hal fal dambiyeed laba jeer loo maxkamadeeyay sidoo kalena arinta ku saabsan goorta muuqaalka la duubay qareenadu waxay sheegeen in la duubay horaantii bishii Febraayo 2026 laakiinse maxkamaddu ma aysan horkeenin wax xoojinaya sheegashadooda todoba in eedda xafiiska ee ku saabsan muuqaalka ay sheegeen in ay ugu gafayso ciidamada booliiska Soomaaliyeed ay saldhig ugu dhigeen in ay gashay faldambiyeedka ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad xeerka ciqaabta Soomaaliyeed haddaba maxkamadda markii ay qiimeysay dhacdada sidoo kalena ay dhuuxday tiirarka faldambiyeedka waxa uu caddaatay in tiirka maadiga ah ee faldambiyeedku uu yahay sharaf ridka karaama ka qaadida hay-ad dawladeed iyada oo maxkamaddu aysan u arkin in nuxurka warka muuqaalka aysan ku dhex jirin wax si cad u tilmaamaya in sharaf dil lagu sameeyay iyo karaama ka qaadid lagu sameeyay iyo sumcad dil ay kula kacday hay-adda booliiska Soomaaliyeed
sideed in xafiiska xeeraalinta ay maxkamadda la wadaageen cod laga duubay eedeysane Sacdiyo intii ay xabsiga dhexe ku jirtay iyada oo xafiisku sheegay in sababta ay eedeysanadu codkaas u bixisay ujeedada ay ka lahayd ay ahayd inay bulshada u gudbiso xaalad aan ka jirin xabsiga dhexe iyada oo suurad xumaynaysay ciidanka asluubta Soomaaliyeed taas oo ugu dambeyn ay ka gaartay ujeedadii ahayd sumcad dilka ayna keentay saameyn xoogan oo caalami ah ayna warkaas sii tabiyeen jariidado caalami ah iyada oo laga dhigayo in xabsiga dhexe uu yahay meel dadka lagu jirdilo laguna gaajeysiyo sagaal in eedeysane Sacdiyo iyada oo ka jawaabayso arintaas ay sheegtay inaysan u gafin xabsiga dhexe iyo taliska asluubta Soomaaliyeed maadaama sida ay sheeganayso xilliga ay codka laga duubayay uu ahaa markii ay 8 maalmood ku jirtay xabsiga iyaduna aysan 4 maalmood oo kamid ah aysan waxba aysan cunin xilligaasna ay ahayd qof xanuunsan oo la dhibaneed xanuunka neefta ah oo ay qabtay sidoo kalena ay la tacbaaneed caana ka soo buuxsamay horaadkeeda iyada oo ahayd hooyo ilmihii ay nuujinaysay laga soo xiray taas oo ku sababtay xanuun daran balse Sacdiya ay sheegtay in aysan marnaba ku sheegin codkaas in xabsiga dhexe lagu dhex jir dilay ama lagu gaajeysiiyay sababta ay u sheegtayna in ay waxba cunin ay ahayd xanuun haayay oo ay la dhibaneed awgiis sidoo kale waxa kaliya ay codkaas ku sheegtay uu ahaa codsi ay u gudbinaysay ciddii soo xirtay in ay sii daayaan duruufaheedana tixgeliyaan 10 maxkamadda markii ay si fiican u darastay nuxurka codka la soo duubay la soo bandhigay waxa uu cadaatay in codka iyadu aysan duubin laakiin uu ahaa telefoon ay ku hadlaysay qofkii ay la hadlaysana uu yahay cidda muuqaalka duubtay in maxkamadda codka aysan ku arkin wax muujinaya sumcad dil aflagaado iyo ka been sheegid xaaladda ka jirta xabsiga dhexe ama u gafidda ka dhanka ah ciidanka asluubta sida darteedna eedda ku saabsan arintaas aysan wadinin wax cadeena 11 maxkamadda rafcaanka markii ay qiimeysay xukunka ka soo baxay maxkamadda gobolka Banaadir kaas oo horay ugu soo heshay eedeysanad Sacdiyo inay gashay faldambiyeedka ku xusan qodobka 269 faqradiisa labaad oo lala aqriyay qodobka 45aad ee xeerka ciqaabta waxa maxkamaddu u cadaatay in xukunkaasi uu yahay mid aan ku qutumin asbaab sharci oo maangal ah maxkamadduna ay ku guul dareysatay in ay iswaafajiso dhacdada ay ka garnaqayday iyo faldambiyeedka ay sheegtay in ay ku heshay eedeysanada in aysan jirin cadeyn muuqata oo maxkamaddu ku dhistay xukunkeeda marka laga reebo muuqaalka iyo codka aan labadooduba sare ku soo xusnay sida aysan u noqon karin cadeymo ku filan dambi ku helidda eedeysanada in maxkamadda ay go'aankeeda ku cuskatay jawaab celin uu bixiyay qareen ka mid ah qareennada difaaca kaas oo ku jawaabay su'aal ay maxkamaddu weydiisay oo ahayd ma waxaad leedahay eedeysanada faldambiyeedkan lagu soo eedeeyay ee ah aflagaadada waa ay gashay oo kuna jawaabtay yes oo ahayd macnaheedu haa balse taa oo qareenka difaaca maxkamadda rafcaanka horteeda ka sheegtay in ay ahayd hafasho ka dhacday hadalka haddaba waxaana suuragal ahayn in maxkamadda gobolka arintaas qiraal ahaan u cuskato iyada oo si cad u sheegayo qodobka 104 faqradiisa koowaad xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed in cidda kaliya ee ku jawaabi karta waan galay faldambiyeedka uu yahay eedeysanaduna in ay inkirtay in aysan gelin faldambiyeedkaas oo ay maxkamadda horteeda ka sheegtay in aysan gelin faldambiyeedka lagu soo eedeeyay in maxkamaddu ay si qaldan u dabaqday qodobka 45 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed
kaas oo quseeya faldambiyeedyada joogtada ah iyada oo faldambiyeedka eedeysanada lagu soo eedeeyay uu hoos galayo faldambiyeedyada halka mar dhaca